السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خياري ميل كاستاد joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka Afaqlaad ciyaaraha hala maalin kastaad kala socodaan barteena YouTube-ka ciyaaraha latest tube kusoo dhawaada muuqaalkan cusub maanta koogi doono wararka ugu dambeeya ciyaarasiiba waxaan eegi doonaa horyaalada kala duwan ee qaaradaha Yurub oo la ciyaaray iyo dabxan siiba waxaan inta badan aan diradda saari doona kulamada Premier League ahna kan ugu xiisaha badan ugu daawashada badan caalamka tusaalahan waxaa jiro kulamooyin weyn oo la ciyaaray shalayto the big 6 kooxaha ugu weyn horyaalada Premier League ayaa shalayto la ciyaaray koox qaarkood ayaa bureega loo qabtay koox qaarkoodna waa laga badiyay qaar ka midna waa ay bashaaleen waa ay badiyeen kala horeynta miiska horyaalka ayaa soo kaleetay isbedel weyn ku yimid kooxda kubadda cagta United ayaa soo kaleetay isbedelkaasi kamid ah kooxii sameeyay dabcan waxaan eegi doonaa rajada tababaraha Nuno Espirito Santo sadaan uu cusubtay subscribe noosar haddii aan ku bilaawno horyaalka Premier League kulamada shalayto la ciyaaray kulanka ugu horeeyay ayuu wuxuu dhaxmaray naadiga Leicester City oo soo dhaweysay The Gunners waana kulan runtii aad mooday inuu yahay kulanka toddobaadka waana kulanka la dhigi karo wuxuu ka mid yahay kuwa u kulul haddii laga tago United iyo Spurs kooxda kubadda cagta The Gunners ayaa gool fantastic oo testa la hormartay waxaana goolkaas u dhalay ciyaaryahanka u dhashay dalka Brazil kana ciyaara difaaca kooxda kubadda cagta The Gunners Gabriel sayad mooday in kooxda kubadda cagta The Gunners daqiiqadii 9 heshay goolkoodii waxaana goolkii labaad u dhalay daqiiqadii 18 ciyaaryahanka Adayer Rosa waana runtii goolaad moodo inuu yahay gool runtii mucjiso oo fantastic aad moodo inuu ka mid yahay goolasha ugu wanaagsan kuwa la dhalay shalayto qaybtii hore ciyaartu waxay ku soo dilaatay 2-0 ay hogaanka ku haso naadiga The Gunners waxaa la isdhahay kooxda hogaamiyo Maxamed Rodriguez dib ayay laba kacleen ku sameyn doontaa hase haatee meesha noqon ciyaartu waxay ku soo dilaatay faa'iidada kooxda kubadda cagta The Gunners ay ku badiso 2-0 sidaan ay wuxuu soo tigsadeen kaalintii shanaad kulanka kale oo la ciyaaray waa kulan dhexmaray naadiga Newcastle United iyo waliba kooxda kubadda cagta Chelsea ahna kooxda hogaaminayso horyaalka Premier League qaybta real mooday in fursadooyin badan oo dahabi iska qasaareen kooxda The Blues ciyaaryahankooda u dhashay dalka Morocco ayaa mooday inuu fursadooyin badan oo dahabi ka qasaaray kooxda kubadda cagta Chelsea ciyaaryahan Ziyech hase haatee qaybtii labaad markii la isku soo laabtay ciyaaryahan James ayaa laba gool oo degdeg u dhalay kooxda kubadda cagta Blues goolkii saddexaadna waxa uu soo raacay ciyaaryahan Jorginho runtii waa gool aad mooday inuu yahay mid mucjiso ah mid runtii aad looga dhacay si fantastic ku dhalay waana gool kulaad ah heshay naadiga Blues imika waxaad moodaa in sida aad moodo Chelsea inay noqotay kooxda hogaaminayso horyaalka EPL-ka kulanka kale aan eegayno waa kulankii dhexmaray naadiga Manchester City ahna kooxda difaacanayso horyaalka Premier League ayaad moodaa inay soo dhaweysay kooxda kubadda cagta Crystal Palace oo horkacayo laacibka hore naadiga The Gunners ciyaartii qaybtii hore ciyaaryahan Zaha ayaa gool u dhalay kooxda kubadda cagta Crystal Palace nasiib daro kooxda City waxaa soo kaleetay kaarka casaanta ka qaatay difaacooda Laporte sayid modin qaybtii hore ciyaartii ku soo dilaatay hal iyo baray ku hogaaminayso kooxda kubadda cagta Crystal Palace runtii badan waxaa la dhigi karaa kooxda City waxay sameyn doontaa what a comeback hase haatee mayso noqonin ciyaaryahan Carragher ayaa goolkii labaad ka dhalay kooxda kubadda cagta City iyadoo joogto Etihad Stadium sida ayaana looga badiyay kooxda kubadda cagta Manchester City 2 gool iyo ever tababaraha kooxdaasi Pep Guardiola la helo wargeyska The Sky Sport kulan kadib ayaa sheegay in kooxda kubadda cagta Crystal ugu qalantay guusha wow haddii laga badiyo kooxda kubadda cagta City kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa breega loo qabtay waana kulan ka dhacaya garoonkooda weyn ee Anfield Stadium ay soo dhaweynayso kooxda kubadda cagta saognahay kulanka ugu dambeeyay ciyaartay kooxda kubadda cagta The Reds waxay la ciyaareen naadiga Manchester United Old Trafford waxayna ku afsuuqeen 5 gool iyo ever iyagoo niyad leh ayay ku soo galeen garoonka qaybtii hore ayaad moodeen kooxda kubadda cagta Liverpool ay kulanka ku hogaaminayso 2 gool iyo ever taasoo la dhiska runtii Liverpool si fudud ay u badin kartaa kooxda kubadda cagta Brighton hase haatee kubadda cagta inta badan lama saadaalin karo ilaa 90 daqiiqo wax kasto ayaa dhex doono kooxda Brighton dadaal weyn ay muujiyeen ciyaartu waxay ka soo dhigeen 2-2 Liverpool ayaa moodeen caadi u noqotay mid runtii aan la saadaalin karin jahwareer ayaa la soo gudbay kooxda kubadda cagta The Reds waxa ay gaareen
hal mar ee ciyaarta naga dhameeya si walba ay noqotay kulanka wuxuu ku soo idlaaday 2-2 taasoo faa'iido ah kooxda kubadda cagta Brighton kulan kale oo la ciyaaray waa kulan derby kulankii dhexmaray naadiga Tottenham Hotspur iyo waliba Manchester United inkastoo United laga soo badiyay 5 gool eber kulanka ugu dambeeyay balse kulankan ayaad moodaa in shaxda uu bedelay tababare Ole Gunnar Solskjaer moodaa inta badan inay saaran tahay cadaadis weyn wuxuu ku soo galay qaab 3-5-2 qaabkaas aad moodaa in tirta badan oo ku ciyaaraya qad ka dhaca oo runtii inta badan uu ka dhigay mid fantastic oo derby oo la mari karin ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa qaybtii hore dhamaadkeeda gool fantastic oo dhalay daqiiqadii 39 kooxda kubadda cagta Manchester United ayaana hoggaanka qabatay waxaana goolkii labaad u dhalay qaybtii labaad ciyaaryahan Cavani gool ka soo shaqay isla ciyaaryahan CR7 soo kale ciyaaryahan Rashford oo gadaal ka soo galay ayaa goolkii saddexaad u dhaliyay naadiga Manchester sayna 3 ay wadreen kooxda kubadda cagta Sport ciyaar United لاعبكان ناديغا مانشستر يونايتد CR7 اما كريستيانو رونالدو يا جولكيسي افارتان دلي عياريد كان سندكا لباتان رونالدو waa runtii ciyaaryahan da'diisu iminka tahay 36 sano jir aad moodaa kulanka shalayta United ay 3 direen naadiga Spurs garoonkooda aad moodaa in gool halkaas ka dhalisay kaleetina gool ka soo shaqeeyay uu saacawinka goolkooda ciyaaryahan Cavani United ayaa shalayta 3 ku dubartay naadiga Spurs Ronaldo ayaana halkaas ka dhalay goolkiisi afartanaad 2021 haddii aad eegto sanadkiisa iyo qaab ciyaareedka iyo goolasho dhalay runtii maahan mid la isku garab la isbarbar dhigi karo marka Ronaldo runtii ciidamadiisa lama haysan karo waxaan dhahay Ronaldo wuxuu ka mid yahay ciyaartoyda ugu wanaagsan caalamka is the best wow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غياري ميل كاستيات جويتان كسو دوada barnaamijka ciyaaraha haloomayn kastaad kala socotiyaan baarteena YouTube ka ciyaaraha la teesto kusoo dhawaada muuqaalkan cusub aan maanta ku eegi doono macallimiinta ugu wanaagsan caalamka hadda la joogo the world best coaches in the world currently imika la joogo ayaanu eegi doona anagoo eegi doono macallimiintan inta koob ay ku guuleysteen wadamadii ay u dhasheen iyo waliba kooxaha ay ilaa imika ay maamulaan ayaanu eegi doonaa runtii waxaan moodaa inta badan dhamaan dadka jecel kubadda cagta ay taageer yihiin kooxaha qaarkooda balse ka ogow bal kooxdada maanta macallinka ugu wanaagsan ma yahay mise waake haddaad nagu cusubtahay subscribe noo sar haddaaga nimita like nuu dhirageli macallinka ugu wanaagsan caalamka hadda la joogo lambarka koowaad waxaa ka galay macallin Pep Guardiola waa macallin imika tababara naadiga Man City waana naadi ka amaasha horyaalka Premier League waxaan moodeen horyaalka Premier League ahna kooxda hanatay they are the champions waana kooxda haysato iminka horyaalka dalkaas Ingiriiska soo kaleetay macallin Pep Guardiola waxa uu ku jira saddexda macallin ugu koobka badan hadii la eego hadii laga soo tago macallinka hore naadiga Man United Sir Alex Ferguson iyo waliba macallinka kale Marzia Luzes Pep Guardiola ayaad moodaa inuu imika yahay macallinka kooxda kubadda cagta Man City soo ku soo biray 2016 ilaa imika waana tababaraha naadiga City waxaan moodeen imika qaab ciyaarkii u ciyaaray Man City mid runtii fantastiga oo loo bogay horey wuxuu u tababari jiray naadiga Bayern Munich Barcelona di weyneed iyo waliba Barcelona di yareed wuxuu ku guuleystay dhowr koob oo horyaalada iyo waliba kan Champions League معلنك اللباد واكي واو معلنك اللباد قطرسن عالمك ومعلنك جادن كلوب وانا معلنك كوعدة كبدا عكتيا ليفربول ومعلن جادن كلوب سديان نقول لبا نوحو كسو بيري ناديغا يوفنتوس لابدا كون 8 iyo 9 ayuu kula guuleystay Champions League soo kaleetiya si ugu soo biray ayaa kooxda kubadda cagta Liverpool ay noqotay inay u soo baxdo Champions League kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa soo kaleetiya ku guuleysatay Premier League 3 sano kadib waxaana sababa macallin Jurgen Klopp hadii aan dib ugu laabano waa macallin hore naadiga Borussia Dortmund Klopp soo kaleetay ayaa wuxuu yahay macallin runtii aad loo qadariyo horyaalka Premier League guud ahaan caalamka
waana macalinka ilaa iminkaan mudda in isugu soo biray kooxda kubadda cagta Liverpool ay wax kastoo isbedeleen ciyaartooyda siba Mohamed Salah, Firmino, Lane ayaad moodaa inay yihiin saddexda weeraryahan oo laga boqo adduunka iminka isaga ayaana sabab u ah sidaasi soo kaleete macalin Jurgen Klopp ayaa in dhowr kooxood kula guuleystay kooxda kubadda Liverpool macalinka saddexaad aan eegayno waa kuma macalinka saddexaad ugu wanaagsan caalamka waa Thomas Tuchel waana macalinka iminka naadiga Chelsea Thomas Tuchel ayaa kusoo biray kooxda kubadda cagta Chelsea cagaagii la soo dhaafay isagoo kula guuleystay Champions League kadib markii ay hal yeer direen naadiga Man City oo laga boqo inay ku guuleystaan horyaalka Champions League balse Tuchel ay moodaa taktikadu isticmaalay ayaa keentay in kooxda kubadda cagta Chelsea ay ku guuleysto Champions League 2020 soo kaleetay macalinkan wuxuu ka saaciday kooxda kubadda cagta PSG inay gaaraan finalka ugu horeeyo ee Champions League ebid gaarto naadiga PSG waana macalinka hore kooxda kubadda cagta PSG macalin Tuchel ayaad moodaa in iminka soo kaleetay kooxda kubadda cagta Chelsea ay hogaaminayso horyaalka dalka Premier League EPL waxaana sabab u ah taktikada uu isticmaalayo macalin Thomas Tuchel oo lagu naaniso TT macalinkii afraad aan eegayno waa Diego Simon waa macalin u dhashay dalka Argentina wuxuuna macalin u ah iminka kooxda kubadda cagta Athletic Madrid waa koox ka dhisan dalka Isbaanishka macalin Simeone ayaad moodaa in kooxdani kula guuleysay dhowr koox ay ka yihiin UEFA Super Cup-ka La Liga Copa del Rey Super Cup-ka UEFA Europa League soo kaleeto ciyaaryahan hore xulka qaranka Argentina macalin Diego Simon ayaa soo kaleetiya iminka kooxdiisa ay tahay Champions-ka horyaalka La Liga isoo kooxda ka saaciday inay ku guuleystaan 2022 horyaalka dalkaas La Liga iyagoo ay joogaan koox weyn sida Barcelona iyo Real Madrid ayaad moodaa inuu intuu laba dhaxdii ka baxay koobkana uu haniyay kooxdiisa Athletic Madrid inay ku guuleystaan koobka dalkaasi La Liga haddii aan ugu laabano taariikhda La Liga inta badan waxaa iska maamulaya kooxaha Real iyo Barcelona balki iminka waxaan moodaa in Simon uu yahay macalinka laga boqo haddii laga soo tago macallimiinta Barcelona iyo Real Madrid waana macallin runtii aad moodaa inuu ku adag yahay shaqadiisa ugu dambeyntii waxaan eegaynaa macalinka shanaad kan ugu wanaagsan caalamka ayaan eegi doonaa waa kuma tilo waa macalinka naadiga PSG Mauricio Pochettino macalinkan ayaad moodaa inuu yahay macallin u dhashay dalka Argentina wuxuuna hore maamuli jiray naadiga Tottenham Hotspur oo ka ciyaara horyaalka Premier League wuxuuna gaarsay kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur inay gaaraan Champions League finalkiisa ugu horeeyo tani abid taariikhda kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur soo kaleetiya wuxuu ka saaciday kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur inay ka ciyaarto Champions League waxaana gaarsay macalin Pochettino iminka waa macalin maamulo naadiga PSG dhowr ciyaaryahan oo muhiim oo caalamka qatarka sida laacibka weyn Lionel Messi, Neymar Jr, Kylian Mbappe iminka macalin u yahay macalin Pochettino waana macalin runtii aan caadi ahayn oo inta badan moodaa in loo qadariyo horyaalka kala duwan qaaradaha Yurub haday noqoto horyaalka Premier League, Bundesliga Jarmalka, Serie A Talyaaniga, La Liga Spanish iyo Liga kan Liwanka Francisca macalin Pochettino waana macalin runtii da'diisu ay tahay mid aad u yar mustaqbalna ku leh kubadda cagta inuu si maamulo koox kala duwan horyaalada kala duwan qaaradaha Yurub si waxaan moodaa in iminka waxaa doonaya macalinkani kooxda kubadda cagta Manchester United aan moodaa in macalinkooda Ole Gunnar Solskjaer oysan caaladiisu ahayn mid fadhida Sporting United السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا غياري ميل كاستو جوتان كسو دوادا برنامجka faqlaada ciyaaraha maanta koogi doono warku dambe ciyaaraha sibana uu eegi doono waxaan moodaa in dhowr kooxood oo ka dhisan qaaradaha Yurub ay macalinkooda ay shaqada ka xiriireen tolo waakee barnaamijkeeda kala socon doonto waxaan soo kaleeyo falaqeyn gaar ku sameyn doona kulan kala yaab kale kulanka shalayto Old Trafford dhaxmaray naadiga Manchester United Liverpool ayaan soo kaleeyo falaqeyn ku sameyn doona eegi doona halka laga haysto naadiga Manchester United ma macalinka misoo ciyaartoyda taageerayaasha United arintaasi ka hadlay iyo waxaan soo kaleeyo eegi doona Mohamed Salah inta gool uu dhalay ciyaareedkan iyo waliba halka uu tiirsanay ciyaarka waxaan moodaa in inta badan shaashadaha adduunka ama wargeysyada caalamka wax ku qoran ay wax ka qoreen ciyaaryahan Mohamed Salah
waxaan inta badan aan eegi doonaa rajada tababare Ole Gunnar Solskjaer haddaad nagu cusub tahay subscribe noo saar haddaan aymitaan like nagu dhiiragelisan aan la socdo wanaagsan tababaraha naadiga Cardiff City lagu magacaabo Mix MC Cathy ayaa shaqada laga xiriyay tababarahan ayaad moodaa inuu kooxda kula jiro qandaraas ilaa 2 sano ah koyton dhibcood kaliya ayuu ilaa iminka kooxda u keenay 14 kulan u ciyaarsay kooxda kubadda cagta Cardiff City waana koox ka ciyaartay heerka labaad ee championshipka kooxda kubadda cagta Cardiff City ayaa laga badiyay 8 kulan oo iska xigto 8 lose in a row runtii waxaan loo dul qaadan karin maanta yaad moodaa in ay ku dhawaaqeen madaxda kooxda kubadda cagta Cardiff City inay shaqada ka celiyeen tababare Max MC Cathy haddii aanayno kooxda kubadda cagta ee Cardiff City ay imika ku jirta kaalintii 12aad ee xagga kala horeynta ee championshipka waxaa soo kaleetay shaqada laga xiriyay tababaraha naadiga Wolfsburg ee ka ciyaarta Bundesliga Jarmanka tababaraha lagu magacaabo Van Pommel ayaa qandaraas kula jiro naadiga Wolfsburg ilaa 3 sano waxaad moodaa iminka in lagu dhawaaqay maanta in shaqada laga xiriyay kooxda kubadda cagta Wolfsburg ayaa shalayto laga badiyay waxaana soo kaleetay moodaa in Wolfsburg ay si wanaagsan ku bilaan ciyaareedka balse kulamada ugu dambeeyay saddexda ayaad moodaa in laga badiyay taasaad moodaa inay ku qasbanaadeen inay shaqada ka xiriyeen tababare Van Pommel waana tababarihii hore naadiga PSV wow iminka waxaan falqayn ku sameyn doonaa aan eegi doonaa kulanka shalayto la ciyaaray ee dhaxmaray naadiga Manchester United iyo Liverpool ciyaartaas oo ka dhacday Old Trafford ciyaartaasi waxaa lagu xasuuqay kooxda kubadda cagta United 5 gool iyo ever goolal ay kala dhaliyeen ciyaaryahan Keita daqiiqadii 5aad daqiiqadii 12aad ciyaaryahan Jota waxaan hat-trick ama saddex halkaasi ka dhaliyay ciyaaryahan Mohamed Salah laacib u dhashay qaaradda Afrika siba xulka qaranka Egypt Salah ayaad moodaa iminka inuu dhalay goolkiisa 10aad ee horyaalka Premier League United ayaa inta badan loo aaneynaya dhibaatada haysata agayo tababare Ole Gunnar Solskjaer waxaa soo kale jirto in ciyaaryahan Paul Pogba la siiyay kaarka casaanka moodaa inta badan ciyaarta rajada ee tiray United waxaana jira in uu soo kale tababare Ole Gunnar Solskjaer uu sameeyay qaladaad dhanka bedelka isagoo runtii bixay ciyaaryahan Rashford keenay Dalot United imika uma baahno difaac waxa u baahantay weerar soo hooshay goolal inta badan ay ka soo kabato ugu yaraan 2-3 gool balse Mason bedelku sameeyay mooday in inta badan ay ka nijabeen taageerayaasha naadiga Manchester United Rashford iyo waliba Bruno Fernandes ayaa banaanka la geeyay waxaa soo kale ciyaartaasi daawanaya tababarihii hore ee naadiga Manchester United Sir Alex Ferguson aad mooday in wajigiisa runtii aad u muuqdaan Carowayn runtii taasaad moodaa in inta badan aan weli lagu arkin sida oo kale tababarihii hore ee naadigaasi Sir Alex Ferguson Ferguson ayaa inta badan daawada ciyaarto naadiga Manchester balse kulanka Aletio ayaad mooday inta badan aad uga carooday kooxda Liverpool ayaa kooxda inta badan ay califtamaan naadiga Manchester United Sir Alex ayaa ah in inta badan uu nabxaan jiray kooxda kubadda cagta Liverpool waxay shalayto dhaxay ah mid iminka aad moodaa inuu shaqadiisa ku weyn doono tababare Ole Gunnar Solskjaer Mohamed Salah ayaa shalayto dhaliyay hat-trick saddex kaasaad moodaa inuu la gabaday kubadda marka fursadaha u banaan haddii aan eegno Ole Gunnar Solskjaer ayaa dhigi kara inay tahay 5% agaasimaha guud ee naadiga Manchester United Woodward iyo waliba Glazer family ayaa la filayaa saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda inay ku dhawaaqaan in la xiriyo Ole Gunnar Solskjaer inta badan wargeysyada caalamka waxay qorayaan in Solskjaer runtii uusan fursad sida uusan haysanin ayna macquul tahay inuu iska tago shaqada waxaana loo badanayaa shaqada Manchester United oo qabtaan tababarihii hore naadiga Inter Milan Chelsea Antonio Conte soo kaleetay waxaa la filayay inuu shaqadaas u qabto haddii macquul tahay tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta Los Blancos Zinedine Zidane marka United ayaa waxay ku jirtaa kaalinta 7aad waxayna leeyihiin 14 dhibcood iyagoona leh 1 gool oo kaliya haddii aanayno xagga kala horeyntii naadiga Chelsea ay hogaaminay oo leh 22 dhibcood 20 goolna way haystaan runtii Liverpool oo kaalinta 2aad ku jirta waxay haystaan 21 dhibcood iyo 21 gool halka City ay ku jirto kaalinta 3aad ay leedahay 20 dhibcood iyo waliba 16 gool marka saacadii soo socday wixii ka soo kordha xaaladda Ole Gunnar Solskjaer barnaamijkeena dambeed kala socon doonta Sports iyo Antabeer
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا خياري ميل كستوات شوكتان كسو دوغادا برنامجكا فاقلا دي عيارها لو ميل كستوات كلا سوعتيان بارتينا يوتيوب كعيارها لا تيستوب كسو دوغادا مقال كان عصوب أنا مانتا كوغي دونون ورارك ودن بعيارها سيبا وحانو إيغنا وركا دق دقا مانتا كوهينو وراركو ساسم توابرا كميدا كان هوريالا دي بريمير ليغاد مودين شغada laga xiriyo dabcan waxaanu eegi doonaa Champions League kulamada Calayto iyo leeyo kulamada caawa dabcan ayaan soo kala eegi doonaa inkastoo uunay in Calayto inta badan kooxaha weyn ay wala badin caawse waa sidii rajooyinka kooxaha weyn sida Manchester United iyo Liverpool ayaa inta badan dhal ugu wadahaya iyo dabcan waxaanu eegi doonaa the latest sport updates wararka macaliyiri wargeysyada caalamka waxay ka qoran ayaan gibihaanba maanta ku eegi doonaa haddaad nagu cusub tahay maatay marka uu hore soo boqo channelkeena subscribe noo saar haddaan naga mitana like nuu dhirageli saano helo saaxiibo wanaagsan sidaadoo kaleetiya dabcan kulanka Calayto ee ka dhacay dalka Faransiiska aan moodaa inuu marti ku yahay ama qaybta VIP-ga uu fadhiyo laacibka weyn ee hore ee kooxda kubadda cagta Barcelona ee xulka qaranka Brazil ee Ronaldinho wow haddaad nagu cusub tahay noo subscribe soo kaleeto like nuu dhirageli haddaan naga mitahay أهلاً وسهلاً كلمة Champions League أو كلامو كترسن قارها يوروب أي هبينكو Calayto العياري يول دبعاً وحاجرو كلامو Calayto لفيلين عاو العيار بس كلمة Calayto هدي أنا نكوا عيسله وحن إجنا كلك دحمري ناديجا PSG يولي وناي كله RB Leipzig أهنا ناديجا صعدوا دالك الجرمانيا عيارت waxaan moodaa in kooxda kubadda cagta PSG ay lahayd marti gool ka soo dhalay ciyaaryahan Kylian Mbappe halka kooxda kubadda cagta RB Leipzig ay la timaadeen ama ay la yimaadeen laba gool oo degdeg saad moodaa inay hoggaanka kulanka ay la wareegaan qaybtii dambe aad moodaa in ciyaaryahan Lionel Messi gool aad u qurux badan u dhalay kooxda kubadda cagta PSG ciyaartu ay noqotay 2-2 soo kaleetay kooxda kubadda cagta PSG waxay heleen gool kulaadkaas uu dhaliyay ciyaaryahan Lionel Messi waxaad moodaa inuu dhaliyay si runtii cajiib oo fantastic runtii aad moodaa in kulankaasi oo soo kaleetay uu daawanaya laacibka hore kooxda kubadda cagta Barcelona Ronaldo waxaad moodaa in qaabka uu dhaliyay Lionel Messi uu yahay qaabka cajiibka oo wax ku dhalin jiray laacibka weyn ee hore ee Ronaldinho hase haatee qaybtii dambe aad moodaa in kooxda kubadda cagta PSG ay fursad kale oo dahabi oo gool kulaada ay iska qasaariyeen Lionel Messi runtii is the real goat gool kulaadkaas aad moodaa inuu ka dhigan lahaa hat-trick bas saaxiibkiisa ayuu siiyay Kylian Mbappe fursadaasi uu qasaariyay kulanka kale ee derbiga la wada sugaya Calayto la ciyaaray waa kulankii dhaxmaray naadiga Athletic Madrid oo soo dhaweysay naadiga Liverpool runtii kulankaasi waa kulan fantastic kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa la hormartay laba gool oo ay kala dhalin ciyaaryahan Mohamed Salah iyo waliba ciyaaryahan Keita hase haatee kooxda kubadda cagta Athletic Madrid ayaa laba gool oo degdeg soo kala tilabit ciyaaryahan Griezmann ayaa labada gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta Athletic Madrid qaybtii dambe aad moodaa in daqiiqadii konton labaad wax kasto ay isbedeleen kadib markii kaarka casaanka loo taagay ciyaaryahan Griezmann kooxda kubadda cagta Liverpool waa ay dadaaleen gool kulaad ay heleen waxaana gool kulaadkaasi dhaliyay ciyaaryahan Mohamed Salah si aad moodaa in kooxda kubadda cagta Liverpool ay 2-3 direen kooxda kubadda cagta Athletic Madrid soo kaleetay kooxda kubadda cagta Man City ayaa waxa ay 5-1 ku casuqeen kooxda kubadda cagta Club Brugge ciyaaryahan Mahrez ayaa laba jeer soo taabtay shabaqa sidaad ayaad moodaa in kooxda kubadda cagta City Calayto ay baashaaleen halkaasna kala soo galbadeen 3 dhibcood oo muhiim ah runtii waa kulan aad moodaa in inta badan ay iska maamulayaan kooxda kubadda cagta Man City horkacaya tababarooda Pep Guardiola wow dhan kale haddii aan eegno kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa waxa ay soo kalatay 5-0 direen kooxda kubadda cagta Shakhtar Donetsk shanta gool ay dhaliyay kooxda kubadda cagta Los Blancos waxa kala dhaliyay ciyaaryahan Vinicius Junior ayaa laba kamid ah dhaliyay soo kaleetay gool ayaa moodeen iska dhalin kooxda kubadda cagta Shakhtar waxaana ka dhaliyay ciyaaryahan Cristiano waxaana goolashaasi ku kamid ah dhaliyay ciyaaryahan Rodrigo halka ciyaaryahan Benzema kabtanka kooxda ahna ciyaaryahanka iminka ugu goolasha badan kooxda kubadda cagta Los Blancos ciyaareedkan Karim Benzema warkaasi ka dhaliyay goolkiisa kulamada kale ee ciyaar hadiyana Porto ayaa hal eber dirtay kooxda kubadda cagta Milan halka Ajax ay 4 eber direen kooxda kubadda cagta Dortmund halka Inter ay 3-1 direen kooxda kubadda cagta Sheriff wana kulamada
muhiimka caalamka la ciyaaray ayaa kuwaasay natiijadoonka haddii aan soo kale eegno kulamada caawa la filay in la ciyaaro sida la isku aadaya Barcelona ayaa qaabili doonto naadiga Dynamo Kiev saacadu markay tahay 7 qadar 45 daqiiqo fidmo halka kooxda kubadda cagta Zalzburg ay soo dhaweyn doonto kooxda kubadda cagta Wolfsburg isla saacadaasi kulamada kale waxay dhexi doonaan tobanka habeenimo siba waxaan eegi doonaa ama falaqeyn ku sameyn doonaa laba kooxo weyn siba magaalada naadiga Manchester United inkastoo ognahay in saddexda kulan ugu dambeeyay horyaalka dalka Premier League Ingiriiska ee Premier League aysan wax guul gaarin naadiga Manchester United kulanka caawse indhaha ayaa lagu hayaa tababare Ole Gunnar Solskjaer tababare Ole Gunnar Solskjaer mooda in inta badan uu saaray cadaadis Spain siba kulankan caawo ee Champions League ayaa mooda inuu yahay kulan muhiim ah haddii caawo oo badiso kooxdiisa United waxaa jiro kulan kale oo derby runtii ay United ciyaari doonto maalintii cad iyagoo la ciyaari doonto kooxda la qaban la Liverpool runtii shaqo weyn ayaa u taalo macallin Ole Gunnar Solskjaer waxaan moodaa Manchester United ay durba bilaaway inay raadiyaan bedelka macallin Ole Gunnar Solskjaer دور معلن كم يهر كونتر زينيدين زيدان ياد مودا إن هذا الهنتي أي أنت بدن ورجيت هذا حالم كأي غريان إن هدي على يونايتد أي شغلة كعيسو تعبر أوجيس لفيلة إن مد كم من المعلمين تاسي أي بدل دوران تعبر Ole Gunnar Solskjaer وانا لاعب هراء نادي مانشستر يونايتد رنتي قلوين يولا سوغاري كودا صابتو واحد مودين إنك أي تاي يونايتد إن كستو أغنى إن يشوغان دور عياريان أو مهم هدنا سيوح سعودان وحي تاي رنتي من آن لو أتكسن كرين وحكستو أيا لفيليا أما وحكستو أيا لحدونا تدوات كالدنبي ودنبيتو وحانو ايجي دونا تابرا كودا كوبادا عكتا نيوكاسل يونايتد وانا وارد ديga شغدا إلهي laga xeeriyay he has been sacked officially runtii milkiilaha kooxdaasi cusub Mohammed bin Salman ayaa arintaasi ku dhawaaqay waxaana macalinkaasi Steve Bruce uu la galbaday adduundan 8 milyan wow waa lacag runtii waaliya lacagtaas ayuu la galbaday haddii aan eegno inta shaqada u hayay kooxda kubadda cagta Newcastle United tababare Steve Bruce wuxuu kooxda ciyaarsay 97 kulan 28 ayuu badiyay 28 soo kale barbara ayuu galay halka 40 coacher laga badiyay kulamada ugu dambeeyay moodeen kooxda kubadda cagta Newcastle ee Sangaalin wax guula waxaana fadhiyaan qaybo ugu dambeeyo halkaas oo halka loo galbanaya Premier League aadaya agayo Serbia marka ninka iskalaha kooxda iminka Mohammed bin Salman ayaa doonay inuu isbedel ku sameeyo kooxda si uga badbaadiyo inaysan dib ugu laabanin heerka koowaad championship waxaanu doonay in kooxda kubadda cagta Newcastle United ay ka mid noqoto horyaalka Premier League soo kale tan isbedel weyn uu ku sameyn doono naadiga Newcastle United Sportiad kala socoteen ciyaaraha la teestub akhyari wanaagtiya aad ayaan ugu mahadsantiin waqtigiina لاعب كان نادي مانشستر يونايتد CR7 أما كريستيانو رونالدو يا جول كيسي أفرتنا دليل على عريض كان سنة كوي لباتن رونالدو وهرنتي عياريان داديس إيمن كتاي صدني لحسنو شير آد مودا كلان كشليتو يونايتد أي صدح إبادرين ناديغا إسبوازا قرون كودياد مودين جول هالكاسي كادالي سوكوليتينا جولو كسو شقي وسعاونكا جول كودال عياريان كارفاني يونايتد أيا شليتو صدح إبر كدو برتي ناديغا إسبواز رونالدو أيانا هالكاسي كادالي جول كيسي أفرتنات 2021 haddii adeegto sanadkiisa iyo qaab ciyaareedka iyo goolasho dhalay runtii maahan mid la isku garab la isbarbar dhigi karo marka Ronaldo runtii ciidamadiisa lama haysan karo waxaan dhahay Ronaldo wuxuu ka mid yahay ciyaartoyda ugu wanaagsan caalamka is the best wow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا غياري ميل كسو جوتان كسو دوادا برنامجka faaqlaada ciyaaraha maanta koogi doono war ku dambeeyay ciyaaraha sibana uu eegi doono waxaan moodaa in dhowrka cod oo ka dhisan qaaradaha Yurub ay macallinkooda ay shaqada ka xeeriyeen toloho waakee barnaamijkeeda kala socon doonto waxaan soo koontay falaqeyn gaar ku sameyn doona kulan kale yaab kale kulanka shalayto Old Trafford dhaxmaray naadiga Manchester United Liverpool ayaan soo kale falaqeyn ku sameyn doona eegi doona halka laga haysto naadiga Manchester United ma macalinka misoo ciyaartoyda taageerayaasha United arintaasi ka hadlay iyo waxaan soo kale eegi doona Mohamed Salah inta gool uu dhalay ciyaareedkan iyo waliba halkuu tiirsanay ciyaarka waxaan moodaa in inta badan shaashadaha adduunka ama wargeysada caalamka wax ku qoran ay wax ka qoreen ciyaariyahan Mohamed Salah
waxaan inta badan aan eegi doonaa rajada tababare Ole Gunnar Solskjaer haddaad nagu cusub tahay subscribe noo saar haddaan ay midana like nagu dhiirigelisan cala saaxiibo wanaagsan tababaraha naadiga Cardiff City lagu magacaabo Mix MC Cathy ayaa shaqada laga xiriyay tababarahan ayaad moodaa inuu kooxda kula jiro qandaraas ilaa 2 sano ah كويتون دبعود كليا أيو إلا إمكان كوعدة وكاني 14 كلان وعيارسي كوعدة كوبدا عكتي كاريف سيتي وأنا كوحكا يارسي هيركا لبعد تشامبيون شيبكا كوعدة كوبدا عكتي كاريف سيتي أيا لقبدي 6 كلان أو سكعكتو 8 لوس إن الرو رونتي وحان لو دول قادن كرين maanta aad moodaa in ay ku dhawaaqeen madaxda kooxda kubadda cagta Cardiff City inay shaqada ka celiyeen tababare Max MC Cathy haddii aanayno kooxda kubadda cagta Cardiff City ay imika ku jirta kaalintii 12aad xagga kala horeynta championshipka waxaa soo kaleetay shaqada laga xiriyay tababaraha naadiga Wolfsburg ka ciyaarta Bundesliga Jarmanka tababaraha lagu magacaabo Van Pommel ayaa qandaraas kula jiro naadiga Wolfsburg ilaa 3 sano waxaad moodaa iminka in lagu dhawaaqay maanta in shaqada laga xiray kooxda kubadda cagta Wolfsburg ayaa shalayto laga badiyay waxaana soo kale taad moodaa in Wolfsburg ay si wanaagsan ku bilaan ciyaareedka balse kulamada ugu dambeeyay 3 ayaad moodaa in laga badiyay taasaad moodaa inay ku qasbanaadeen inay shaqada ka ciriyeen tababare Van Pommel waana tababarihii hore naadiga PSV واو إمك وحن فلقين كسمين دونا عن أجي دونا كلن كشلتيو لعياري دحمرين ناديجا مانشستر يونايتد يو ليفربول عيارتها سكر هذه أولد ترافورد عيارتها سيا وحلوجو حسوقي كوعدك وبذاعك يونايتد شن جولي إبر جولال أي كلا دليان عياريان كيتا دقدي شنات دقدي لا يتونات عياريان جوتيا وعن هاتريك أما صدق عليه هالكاسي كدلي عياريان محمد صلاح لاعب وده شيء قردة أفريقيا سيبا علك قرنك إيجيبت صالح ayaad moodaa iminka inuu dhalay goolkiisa tobnaad ee horyaalka Premier League United ayaa inta badan loo aaneynaya dhibaatada haysata agayo tababare Ole Gunnar Solskjaer waxaa soo kale jirto in ciyaaryahan Paul Pogba la siiyay kaarka casaanka aad moodaa inta badan ciyaarta rajada ee tiray United waxaana jira in uu soo kale tababare Ole Gunnar Solskjaer uu sameeyay qaladaad dhanka bedelka isagoo runtii bixay ciyaaryahan Rashford keenay Dalot United imika uma baahno difaac waxa u baahantay weerar soo hooshay goolal inta badan ay ka soo kabato ugu yaraan 2-3 gool balse Mason bedelku sameeyay mooday in inta badan ay ka nijabeen taageerayaasha naadiga Manchester United Rashford iyo waliba Bruno Fernandes ayaa banaanka la geeyay waxaa soo kale ciyaartaasi daawanaya tababari hore naadiga Manchester United Sir Alex Ferguson aad mooday in wajigiisa runtii aad u muuqdaan caroweyn runtii taasaad moodaa in inta badan aan weli lagu arkin sida oo kale tababari hore naadigaasi Sir Alex Ferguson Ferguson ayaa inta badan daawada ciyaarto naadiga Manchester balse kulanka Aletio ayaad mooday inta badan aad uga carooday kooxda Liverpool ayaa kooxda inta badan ay califtamaan naadiga Manchester United Sir Alex ayaa in inta badan uu nabxaan jiray kooxda kubadda cagta Liverpool waxay shalayto dhaxaya mid iminka aad moodaa inuu shaqadiisa ku weyn doono tababare Ole Gunnar Solskjaer Mohamed Salah ayaa shalayto dhaliyay hat-trick saddex kaasaad moodaa inuu la gabaday kubadda marka fursadaha u bannaan haddii aan eegno Ole Gunnar Solskjaer ayaa dhigi kara inay tahay 5% agaasimaha guud ee naadiga Manchester United Woodward iyo waliba Glazer family ayaa la filayaa saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda inay ku dhawaaqaan in la xiriyo Ole Gunnar Solskjaer inta badan wargeysyada caalamku waxay qorayaan in Solskjaer runtii uusan fursad sida uusan haysanin ayna macquul tahay inuu iska tago shaqada waxaana loo badanayaa shaqada Manchester United oo qabtaan tababarihii hore naadiga Inter Milan Chelsea Antonio Conte soo kaleetay waxaa la filayay inuu shaqadaas u qabto hadii macquul tahay tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta Los Blancos Zinedine Zidane marka United ayaa waxay ku jirtaa kaalinta 7aad waxayna leeyihiin 14 dhibcood iyagoona leh hal gool oo kaliya haddii aanayno xagga kala horeyntii naadiga Chelsea hogaaminaya oo leh 22 dhibcood 20 goolna way haystaan runtii Liverpool oo kaalinta 2aad ku jirta waxay haystaan 21 dhibcood iyo 21 gool halka City ku jirto kaalinta 3aad ay leedahay 20 dhibcood iyo waliba 16 gool marka saacadii soo socday wixii ka soo kordha xaaladda Ole Gunnar Solskjaer barnaamijkeena dambeed kala socon doonta Sports iyo Ananta